dadka ku nool bariga dhexe, geeska Afrika, Aasiya iyo guud ahaan adduunka intiisa kale. qarashka maalinlaha ah ee ay ku bixiyaan shidaalka, korontada iyo gaadiidka wuxuu si dadban ula xiriiraa waxa ka dhacaya marinbiyoodkan ciriiriga ah. marinka Hormuz waa marinbiyoodka ugu muhiimsan adduunka. wuxuu ku yaallaa inta u dhaxaysa xeebta Iiraan iyo jasiiradda Musandam ee Cumaan. waa marinbiyoodka keliya ee gacanka Carbeed ku xira badweynta furan. meesha ugu cidhiidhisan marinka waxay ku fadhisaa qiyaastii 21 mayl oo keliya. si loo hubiyo badbaadada gaadiidka badda awgeed, waddada maraakiibta caalamiga ah waxaa lagu xadiday 2 mayl oo keliya sii socod iyo soo socod, waxaana kala soocaya aag 2 mayl ah oo maraakiibta ka caagan. cabbirka badkiisa oo aad u yar marka loo fiiriyo tirada baaxadda leh ee tamarta dhex marta waxa ay ka dhigaysaa meel ciidan oo istaraatiijiya, taasoo xiisad kasta oo milatari oo ka dhacda aagga ku xeeran ay isla markiiba isu beddelayso musiibo tamareed oo caalami ah. marka la eego xogta la sii daayay horraantii sannadkan 2026, marinka Hormuz waxaa lagu tilmaamay saldhigga xasilloonida dhaqaale ee adduunka. colaadda ka hor waxaa marinka gooshi jiray ilaa 120 markab maalintiiba, kuwaas oo sida qiyaastii 20 ilaa 21 milyan oo fuusto oo isugu jirta saliid cayriin iyo mid sifaysan. tani waxay ka dhigan tahay in ilaa 25% shidaalka badda la marsiiyo ee adduunka uu ka tilaabi jiray marinkan duulaanka Iiraan lagu qaaday ka hor. hadda waxaa mara ugu badnaan 9 markab maalintii kadib marka ay Iiraan ka helaan oggolaasho, kuwaas oo gudbiya qiyaastii 2 milyan oo fuusto oo keliya. taas micnaheedu waxa uu yahay in shidaalkii marinkaasi ka tallaabi jiray maalintiiba uu hoos u dhacay ilaa 87%. 20% gaaska dabiiciga ah ee adduunka waxa uu ka gudbaa marinkan. gaaskan intiisa badan waxa uu ka yimaadaa dowladaha Qatar iyo Imaaraadka Carabta. in ka badan 80% shidaalka iyo gaaska goosha Hormuz waxaa loo dhoofiyaa suuqyada Aasiya. Shiinaha waxa uu ku tiirsan yahay shidaalka iyo gaaska Hormuz mara 44%. Hindiya waxa ay ku tiirsan tahay 64%. Kuuriyada Koonfureed waxa ay ku tiirsan tahay 74%. Jabaan oo ah waddanka ugu badanna waxa uu ku tiirsan yahay 88%. arrintan ayaa Hormuz ka dhigaysa mid ay ku tiirsan tahay nolosha dadka ku nool dalalka ugu dadka badan adduunka. sidoo kale, inta badan saliidda iyo gaaska dalalka gacanku u dhoofiyaan Yurub iyo Waqooyiga Ameerika iyaduna waxay martaa Hormuz, kadibna sii gooshtaa marinka kale ee Baabalmandab ka hor inta aysan gelin kanaalka Suways ama dhuumaha Sumed. taas micnaheedu waa in khatar kasta oo ku timaada mid ka mida marinbiyoodyadani ay gilgilayso kuwa kale.
marka laga soo tago tamarta kale dowladda qatar waxay bixisaa qiyaastii 60% heliumka adduunka kaas oo mara hormuz maadadan waxay lafdhabar u tahay dhaqaajinta warshadaha tiknoolajiyadda horumarsan iyo mashiinada MRI-ga ee caafimaadka wixii ka dambeeyay weerarada lamaan ee lagu qaaday kaabayaasha nukliyeerka iyo milatariga Iiraan ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan waxay ku dhawaaqeen in marinka Hormuz uu ka xiran yahay maraakiibta ganacsi ee si uun xiriirka ula leh dalalka weerarka ku soo qaaday inkasta oo fulinta xayiraad buuxda oo ka dhan ah maraakiibta casriga ah ay adag tahay haddana Iiraan waxaa u suurtagalay meelmarinta xayiraad dhaqangala iyada oo weeraraysa maraakiibta shidaalka ee u hoggaansami weyda awaamirteeda bartamihii bishan Maarso waxaa la xaqiijiyay in ka badan 21 weerar oo lagu qaaday maraakiib aan amarkaasi u hoggaansamin waxaa hadda badda dhex hogan ilaa 3,000 oo markab oo xayiraadan ay saamaysay sanadihii la soo dhaafay waxaa Hormuz laga diiwaan geliyay dhacdooyin badan oo ay ku jiraan afduub loo geystay maraakiib shidaal iyadoo ku saabsan weeraro loo adeegsaday diyaaradaha dhulka laga hago ama gantaallo iyo dhoolatus murqa muujina oo ay ciidamada badda Maraykanku sameeyeen dhammaan arrimahani waxa ay si ku meel gaar ah u kordhiyeen qarashka caymiska iyo qiimaha saliidda labadaba hadda qiimaha caymiska khatarta dagaalka ayaa cirka isku shareeray qaar ka mid ah sharikadaha caymiska ee waaweynna gebi ahaanba way joojiyeen adeegooda arrintan ayaa keentay hoos u dhac ku dhowaad 90% oo ku yimid dhaqdhaqaaqii maraakiibta ee marinka Hormuz cawaaqibka go'aanka ay Iiraan ku xirtay marinka Hormuz ayaa noqday mid aan soo daahin qiimaha fuustada saliidda cayriin ee Brent oo dagaalka ka hor $70 ahaa ayaa kor u kacay wuxuuna toddobaadyo gudahood ku gaaray $120 fuustadii dadka ku nool bariga dhexe geeska Afrika Aasiya iyo guud ahaan adduunka intiisa kale qarashka maalinlaha ah ee ay ku bixiyaan shidaalka korontada iyo gaadiidka wuxuu si dadban ula xiriiraa waxa ka dhacaya marinbiyoodkan ciriiriga xiisadda oo sii daba dheeraata waxay horseedaysaa carqalad weyn oo ku timaada maraakiibta mara Hormuz saameyntana kuma ekaan doonto oo keliya waddamada Aasiya ee iyagu sida tooska ah ugu tiirsan tamarta marinkan sii dhex qaata sidoo kale waxa ay u gudbi doontaa oo ay saameyn doontaa Yurub iyo Ameerika waxayna culayska ku kordhinaysaa kaydka istiraatiijiga ah iyo dadaalada nidaaminta suuqyada